halkan xaruntan guest house-ka waa xarumaha aan ugu talagalnay in lagu qabto shirweynayaalka ay isugu imaanayaan dawladda federaalka markay timaado lagu martiqaado maamul goboleedyada lagu martiqaado ganacsatada dhammaan waa meelaha lagu talagalay martiqaadyada lagu talagalay oo hore u diyaarsanaa haddana aad doonayna in shirarka lagu qabto soo socda insha Allahul Kariim aan ku soo dhaweyno maalan ba martiqaadka aan ku soo dhaweyno dad baa way moodayaan moogtaa galmudug inaan waxba u dhisnayn waxa weeye in guryo waaweyn noo dhisan yihiin oo ma sha Allah kaana oo wax marti gali karna waa muujinaynaa biidnillaahil kariim hadii Allah idmo haddana waxaan soo booqanay wasaaradda maaliyadda soo booqanay meelo badan wasaaradaha xarumahooda dhan waa tagaynaa hadii Allah idmo insha Allahul Kariim waxaan doonaynaa inaan yaani boorka iska jafno hadii Allah sida maamul goboleedyada kale ay boorka iska jafeen oo aan ka daba tagno hadii Allah idmo aan noqono insha Allahul Kariim kuwa lamida ama ka sareeya aan noqono marka dhammaan yaani shacabka reer galmudug oo isku xilqaamay in ay wadankooda dhistaan deegaankooda dhistaan dadkooda horumariyaan oo u mahadcelinayna ganacsatada isxilqaantay sidaan oo kale u qurxinaysa haddana deegaankii caasimadda u qurxinaysa u diyaarinaysa martida sharafta leh oo imaanaysa ama kintii lagu marti qaadi lahaa oo lagu soo dhaweyn lahaa waa u mahadcelinaynaa aad iyo aad waxaan leenahay meeshiina ka sii wada si horumariya magaalada bilicdeeda soo celiya ama kinta maalan bacaamka in sidaan oo kale loo qurxiyo waa waxyaabaha aan rabno oo laga horumariyo ama kinta shakhsiga oo shakhsigu gaar u leeyahay si mid caamka dadka dhama ku dhimansanaya ummadda dhama ka faa'iideysanaysa laakiin tan khaaska shakhsiga kaligiisa ayaa ka faa'iideysanaya marka insha Allahul Kariim ama kintaan oo kale inay noo badataan rajaynayna hadii Allah idmo magaalada geesaheeda oo dhamayna ku taala biidnillaahil kariim ciriiri noqon doonaan marti kastoo timaada hadii Allah idmo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxa xukuumadda iyo ku-xigeenada iyo wasiirada dhammaantiin iyo saxaafadda waa salaamatihiin marka xiga meeshaan waxaan 6 bilood ka hor iyadoo markii la aasaasayay qoryaha yaal iyo dhagaxda yaal yaabis wixii aan laga harin mar un baa la helaa waa la dhisay waa la dabagalay maanta waad u jeedaan quruxdooda meel kasta oo la bilaabana saas u dhismi doontaa waxaan aad iyo aad ugu gaabinayaa dadweynaha gobolka degan iyo kuwa meel kale degan iyo kuwa maalgeliyayaasha inay soo ordaan oo aan laga boobin dhulalka iyo meelaha fiican oo lagu soo hiranayo degdeg u imaadaan leenahay ku soo dhowaada qolyihii hadda sida sheekhu sheegay lahaa dhuusamareeb waa meel iska dayacan warma dayacanina waa ladana aad baan u fiicannahay haddaan isku duubannahana wax weyn baan samayn doonnaa intaana isku duubnidaa noo samaysay wax badoo kaloo badanna waa samayn doonnaa xoogga iyo gacmaha iyo maskaxdaan isku geysanaynaa wax badanna waa dhisanaynaa ilaahay ha nala garab galo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu